madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku guda jira safarkooda nabadda oo ay ku marayaan qaybo ka mid ah gobolada Puntland ayaa si wada jira kormeer ugu sameeyay dhismaha wadada Ceel Daahir Ceeri Gaabo taasi oo hirgelinteeda ay iska kaashanayaan shacabka iyo dowladda Puntland. dhanka kale labada madaxweynaha ayaa si wada jira u dhagax dhigay wadadii ugu weyneed oo isku xireysay qaybo ka mid ah gobolada Bari, Gardafu iyo Karkaar. sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Cabdirasaaq Xasan Faarax oo qayb ka ah safarka madaxweynayaasha. halkan waa deegaanka Ceel Daahir oo ka tirsan gobolka Bari. waxaa soo gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qayb ka yahay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo golayaasha kala duwan ee dowladda Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya. socdaalkani markii ay ku soo gaareen deegaanka Ceel Daahir ee gobolka Bari waxa ay kormeereen wadada isku xirta magaalooyinka Ceel Daahir Ceeri Gaabo oo dhismaheedu uu socdo. waxaana dadka deegaanku ay ku soo dhaweeyeen madaxda caleemo qoyan iyo calaamada Soomaaliya iyo Puntland. intaasi kadib wafdiga ay hogaaminayaan labada madaxweyne ayaa u soo dhaqaaqay dhinaca degmada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. waxaana inta aysan gaarin Boosaaso ay dhagax dhigeen waddo isku xiri doonta deegaanka Kalabayr iyo degmada Caluula. wadadaasi oo la dhisay dhawaan waxaana ay si wada jir uga dhagax dhigeen deegaanka Kalabayr wadada isku xiri doonta Caluula iyo Kalabayr. labada madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ay dadka deegaanka u sheegeen in wadadaasi tahay mid muhiim ah isku socodka dadka deegaanada Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. isla markaasina dowladda Puntland iyo dowladda federaalka way ka go'an tahay horumarinta guud ahaan dalka. Cabdirasaaq Xasan Faarax, Puntland TV, Boosaaso.